waatahay daawadayaal caawa barnaamijkeena dhalinyarada waxaa marti u ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan wadankan Ingiriiska ee magaalada London. barnaamijkeena caawa waxaan ugu hadli doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha door intee leeg ay kaga qayb qaadan karaan horumarka ka socda dalkeena Soomaaliya. barnaamijkana caawa sida u jeedin waxa ay la joogaan dhalinyaro Soomaaliyeed in marka hore ku soo dhawaada barnaamijkan dhalinyarada iyo TV qaranka Soomaaliyeed. waatahay barnaamijkeena ayaan u gudagali doonaa anagoo rabnay inaan ku turxaan bixino bal door intee leeg ay dhalinyarada Soomaaliyeed kaga qayb qaadan karaan horumarka ka socda dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo caasimada u ah. su'aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan weydiiyo xaaji ku soo dhawo marka hore TV-ga sida og tahay dalka Soomaaliya haatan wuxuu cagta saaray wadadii nabadda iyo horumarka bal sidee aad u aragtaan isbedelka ka socda haatan Soomaaliya. marka hore waxaan u mahad celinayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan haday aan leed gobolada ama wadamada kale waxaan leeyahay maaragtay aad hortu mahadsantiin marka horena mahadda Allah subhanahu wa ta'ala iskale san kalena waxa iskale shaqaalaha Somali National TV oo aan aad u tixgelinayno barnaamijyada ay wadaan mar walba. bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo barnaamijkan noo soo tagaliyay inay imaano marka xigtana waxaan mahad celinayaa shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo barnaamijkan ugu sharfay. haddii aan u soo laabto su'aasha ay weydiisay jawaabteeda horumarka ka socda dalka Soomaaliya marka koowaad aan ku faraxsanahay 100% waa wax oo la taaban karo waan ku faraxsanahay. waatahay sidoo kale waxaana la fadhiyo Cabdullaahi Xasan oo asagana kamid ah dhalinyaradan ku nool qurbaha gaar ahaan wadankan Ingiriiska magaalada London. Bisla su'aasha ayaan ku jirnaa Cabdullaahi waxaan rabnaa bal inaad wax nooga sheegto isbedelka ka socda haatan Soomaaliya gaar ahaan caasimada sidaad og tahay waxa socda maalmahan dhismooyin hadii aan lahayd eelaboorka tigida meel walbo bal adiga sidee aad ula socotaa arimahaas. bismillaahir rahmaanir rahiim wa assalamu ya dhamaantiin waxaan u mahad celinayaa marka hore TV-ga qaranka oo runtii mar walba ka shaqeeya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay fursad helaan oo loo sameeyo maxaan ku oran karaa wax wanaagsan oo dhalinyaradu ay uga badbaadi karaan inay kaga qayb galaan arrimaha dhinacyada dhibaatada. marka runtii aniga waa la socdaa magaalada Muqdisho gaar ahaan waxa hadda ka socda horumar aad u wanaagsan. dawladda Soomaaliya waxay hadda dhalinyarada u abuuraysaa inta badan shaqo waxa socdo kale oo fursado kale oo ay heli karaan dhalinyaradu oo ayaanta dambe aad arkayso in horumar weyn runtii ka jira magaalada Muqdisho oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku soo dhiiran karaan oo ay imaan karaan oo ay ka shaqeyn karaan oo mar walba ay heli karaan fursado aad u muhiim ah waa hadaysan ayagu aysan dhumin fursadahaas. marka dawladda Soomaaliyeed hawl fiican bay wadaa horumar aad u weyn baa magaalada Muqdisho ka socda markaad fiiriso wadooyinka markaad fiiriso aeroboorka aadan cadde waxa ka socda hadda la furay dawladda Turkiga furtay runtii hatta qaybtaas cusub ee aeroboorka dhalinyarada waxay ka heli karaan shaqooyin aad u badan. marka runtii su'aashu waxa waaye wax wanaagsan baa socda runtii aad waa mahadsanyahay Cabdullaahi runtii lama soo koobi karo horumarka uu haatan sameeynaayo dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimada magaalada Muqdisho dhalinyaradana waa tiirka ummad walba haday gacmaha isqabsadaan wax weyn ay qabsan karaan. xaaji hadii aan kugu soo laabto isleedahay hadii dhalinyarada Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan horumarka haatan ka socda dalka qayb weyn ay ka qaadan karaan. aad iyo aad waa wax muuqda oo cadtaas mid la isweydiinayo ma aha maxaa yeelay dhalinyaradu waxa waa cudud kaliya ee lagu tashto mar walba hadii ay wax bartaan dadaalaan. tan kale waxaan aad ugu faraxsanahay dawladda hay'adaheeda kala duwan howlaha ay ka wada magaalada isbedelka socda ma aha mid hadda la soo koobi karo ama dhig kar hal iyo labo laakiin waxaan jeclaan lahaa in maaragtay danteeda kala dhan kala taabto oo mawduucan uusan ku jirin ciidamada waxa loo baahan dawladda in ay ku dadaasho ciidamadan la siiyo mushaarkooda si ay u hantaan dalka guud ahaan nooc kastay taaba waa in lagu dadaala. teeda kale ganacsatada waxaan ka codsanayaa in naftooda cudud kale waa in ay caawiyaan dawladda si nidaamka uu hirgalo loona helo nabad waarta. marka dhalinyaradu waxaan ku waanin lahaa ama aan kala hadli lahaa barnaamijyada qaarkood ay galaan sida maaragtay waxyaalaha qaldan oo nimankan ay ku dhaqmaan inay galaan ma aha waqtigooda inay ku dhunshaan ma aha in qalbigooda ay geliyaan ma aha waxa muhiimadda ah inay wax bartaan dalka ayagu u baahan yahay waa dhalinyaro waxa laga yaabaa berito inay noqdaan madaxweynaha wadanka waxa laga yaabaa ra'iisul wasaaraha inay noqdaan waxa laga yaabaa second haddana inay noqdaan ciidamada haday rabaan waxay noqon karaan saraakiisha kamid noqon karaan waxay noqon karaan wax kasto waxay noqon karaan xataa ambassador
soo fursado badanaa jirto marka dhalinyarada waxaan ka codsan lahaa in aysan waqti isaga dhumin waxyaalaha qaar ay ku dadaalaan mustaqbalka wadankooda iyo aayahooda si ay horumar u gaaraan tan kale waxyaalaha magaalada hadda ka socdo waxyaalo la dareemi karo dadka ay u wada jeedaan isbedel ka dhacay waa dhamaaday xilliga qabiilka waa dhamaaday waxyaabihii la isku qabsan jiray waa dhamaaday waxyaalo badan oo dadku ay interest jireen oo sida qabiilka kale oo qabiilkayga saan iyo waxa alxamdulillah hadda maanta waxaan cagta saarnay wadada nabadda waxaan jeclahay inay Soomaaliya ku dhamaato arinteeda mid bashbash iyo barwaaqo leh oo ay dadku ku wada noolaadaan nolol aad u macaan badan annaga qurbaan waa iska joognaa waxaan u joognaa waxaan wadankii inuu nabad noo noqdo haddana insha Allah tacaala kulli waxaan wada noqon doonaa wadankii qof walbana wadanuu leeyahay dhul ninkiisiiba iska leh Soomaaliba iska leh Soomaaliyana way gaari doontaa horumar waxaan u rajin doonaa in ay ku dhamaato guul barwaaqo horumar iyo bashbash waan u duceynaynaa qalbiga culimadan waxaan leenahay in ay dhalinyarada naftooda wacyi geliyaan waxna u sheegaan marka aad aan ugu mahadcelinahay TV-ga qaranka Soomaaliyeed aad baa u mahadsantahay xaaji waa sida sheegtay dal walba dadkiisa ayaa iska lahan in dhalinyaradana waa runtii tiirka ummadda Soomaaliyeed runtii oo la dhihi karo Britol waa mustaqbalka dadkii noqon lahaa madaxweyne iyo dadka wadanka dhan maamuli lahaa Ismaaciil haddii aan ku weydiiyo ma is leedahay ama qorshaha ma kugu jira inaad dalkii u laabataan wallaahi ani ahaan haa weliba mar dhow inaan wadanka ku laabto horumarka ka socda ka qayb qaato waa igu tala jirtaa taas soo dhalinyarada kalena waxaan kula tali lahaa inay laabtaan ay ka naftigooda midda kale aan ku dirsan lahaa barnaamijkan waxaa waaye haddii aan ka hadlo tahriibka dhalinyarada farakul ku haya Soomaali meel walba joogaan soo dhalinyarada waxaan ku tali lahaa tahriibkaas ka dhaafaan tahriibku waa wax xun naftooda dib u keenaya markay soo tahriibaan xataa meesha loo soo tahriibay marka la imaaday nolol fiican ma la kala helaayo oo ma la kala kulmayaan oo dhibaato kale iyo waxyaalo badan jiro dhalinyarada kalena waxaan ku tali lahaa kuwa inta joogo qurbaha joogaan runta ha sheegaan inta badan runta waa la akhriyaa oo dhalinyarada soo tahriibayso soo cararayso oo Yurub soo aadayso in Yurub nolol fiican taale ay aaminsan yihiin soo qof walba meeshan ka tago oo wadanka ku laabto nolosha dhabta ah oo Yurub taalo ha ka hadlo sidoo tahriibku u yaraado oo dhalinyarada oo wadanka joogto ee u dareemaan inay meesha u soo cararayaan waxba oolin laakiin marka aan meeshan ka tago Yurub wadanka ku laabto haddii aan dhalinyarada ka dhacsiin nin nolol fiican ka imaaday waxyaalo qatar aan ka sheekeeyo soo ninkii gudihii joogay dhalinyarada ahay israa kale ninkan wuxuu soo helay soo taabo soo taas mu ku tali lahayn inta badan dhalinyarada xogaa waa la iska hoosbaash waa la hoos geliyaa soo marka waxa hoosgeliska hal la fadhiila runta hala sheego sidoo qof kale walaalkeen uu soo carar la meesha imaan lahay uu ku badbaadi lahay soo taas aan ku soo gabagaynaa marka waa gartay Ismaaciil runtii wuxuu ka dhawaajiyay runtii way fiican tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay haatan qurbaha u suura gashay inay imaadaan inay runta u sheegaan dhalinyarada kaleeta in wadankooda uu yahay runtii muhiim inay wadankooda ilaalsadaan nabadiisa iyo waxqabadkiisa ummad walban waxay sharaf ku tahay inay wadankeeda joogto isla su'aasha haddaan Cabdullaahi ku weydiiyo ma kugu jirtaa in mar aad ku laabato dalka Soomaaliya waa igu jirtaa of course waa noqonaynaa maxaa meesha mali anaga moogta waa qurbe maxaa noqon weyna waa markasta daqiiqad kasta noqon karnaa waa noqonaynaa wadankii baa u noqonaynaa meesha waa aragteen qurbaha waxa waaye qabowgan iyo dhibaatadan iyo maxaa ku dhaal lugaha xanuunka iyo waxyaalahan meel qorax leh wadankanaga qoraxdu isbedelayn magaalada Muqdisho qoraxda iyo waxa ka muuqda runtii waxa waaye waad u xiisaysaa homsi waxaan ku dhahaa waad u boholiyoobaysaa macnaha waxaan u xiisaysaa wadankaaga Soomaaliya waa meel barwaaqo ah way runtii Soomaaliya gaaladan hadday heli lahaayeen jannada adduunka ka dhigi lahaayeen runtii badda iyo wax yaala qorax isbedelayn baddii maxaan ku dhahaa xoolihii wax kasto fresh meesha waxa waaye markaad xagga tagto niyadda ku dhismaysa marka ma noqonaysaan maara waa noqonaynaa dhalinyarada wadankan jooga meel walba qurbaha waa noqonayaan wadankii baa noo baahan intii wax ka baratay intii khibrad kale xataa waxbarasho kaliya maana khibrado badan baa jira xirfado badan baa qurbaha laga dhaxlayaa oo maarad qaabka loo shaqeeyo iyo waxyaalahaas marka ninkii xirfad haystan wadanka waa tagi karaan ninkii shahaadooyin waaweyn iyo jaamacado dhameeyayna asagu darajo weyn buu ka helayaa wadankii waxa waaye dawladdu xataa qayb ka noqon karaa dhalinyaro badan inta ku baratay wax dawladda ka miyiin wasiiro hay'ad badan baa kaaga banaan xataa waxa joojin kartaa qaxootiga ee dadka maartay badda saxaraha Liibiya ku baaba'ay runtii la joojiyo waa calool xumo maalin walba in la fiirsado dad Soomaaliyeed halka ku dhimanaya dhalinyarada wadankan joogana waxa oran lahaa ku intay soo tahriibeen ilaahay ka soo badbaadiyay dhibaatada
kuwa kale u sheegay runta si saaxiibkay u ka dhawaajiyay runta u sheegana dhahay war meeshan balaayaa taala war doomahan waa dooma macbilo ma ahan kuwa ku badbaadinaya war wadankaaga joog war shaqayso war meeshaada war beerahaaga falo war baddaada ka kalluumayso fursadda ugu fiican ee Soomaaliya ka jirta waana noqonaynaa aad baan u maasan aad u muhiim ah waa la isku xiri karaa hadii macnaha maaragtay aan fiirino because adduunka hadda waa la hormaray aalado fara badan jiro waxaa jira Facebook jiro waxaa jira Twitter jiro social media naftigiisa aad uga qayb qaadan kara waa community ahaan hadii Soomaalidu inta joogto isku daydo ku xaq waa la xiriiri karaa waana wax aad u muhiimsan waana wax dadka hormarin kara dhalinyarada marka waa arin muhiim ah marka waxa loo baahan dhalinyarada qofal Facebook ay leedahay Twitter ay leedahay waa in wanaag looga shaqeeyo nabadda ani maalmahan dambe waxaan arkaa qaar meediyaasha macna u adkeysanaya Facebook oo kale Facebook oo kale qaar waxay soo gelinayaan arin qabiil iyo waxyaalo ma aha dadku wax fiican u sheeg naftiga meesha waa meel oo isku barkulan waay dadka ku kulma marka wax soo dhigayso kale wax akhlaaq in la soo dhigo kale marka taas aad muhiim u ah marka dhalinyaradana waa xuduudda jirto oo muuqato waa gartay waxaan rabaa su'aasha kale inaan Ismaaciil weydiiyo xilliyada dhalinyarada haatan ku nool qurbaha aad adinka kamid tihiin xilliyada fasaxa ah ma isleediin hadii aad wadanka inta tagtaan si volunteer ama tadawacnimo ah aad ugu shaqeysaan hatta hal maalin Allah ka dhigay wax bay ku soo kordhin kartaa dalka dabcan ha way ku soo kordhin kartaa kullee markii fasax la aado inta badan Yurub waqtiga samarka fasax la helaa iskuulada iyo shaqooyinka laga nastaa waa 2 bil waa waqti badan soo waxa way dhici kartaa taas oo wili waa ku dhiirigelina dhalinyarada marka wadanka tagtid un holle kaliya u tagine xeebta liido kale ina aadid iyo ina family kala joogtid kaliya ku ekeen nolosha caawi dhalinyarada kala wadanka joogta caawi dawladda shaqooyinka oo dhalinyarada qaabilsan gal si free ee waliba oo waxba adoo mushaar dalbanaynin ku shaqeey inta badan maanta dhalinyarada magac xun aan laga aaminsan yahay meel walbo dawladda ninkii wax yarka weyn oo adiga oo dhalinyarada kor u qaado wuxuu leeyahay wax wadanka qasaya waa dhalinyaradii wax isqarxinaya waa dhalinyaradii wax dilaya waa dhalinyaradii soo marka hadii oo dhalinyaro la helo oo free ku shaqeynayso isbitaalada free u shaqeynayso oo wadada free ku xaqeyso oo wax walbo si oo free ku sameynayso xogaa magacaas uu naga yaraa lahaay waa sax waay inay xagga tagaan macnaha ay kaligood iska daneystaan howlahooda qaaska qabsadaan ma ah waa in macnaha wadanka qofka markuu banaanka intoo kale ka tago oo xagga tago inta joogto wadankaaga marka aragto xogaa aniga bam ku shaa waxaan noqdaa emotional macnaha niyada dhalaa macnaha si kale noqoto waxaan ku riyoodaa xitaa sometimes أنا بابورت خشنك والله لا شقينا وجدك حاقة تصنع إيه كينس هو الدنيا تدكو إن لقى ودنيا دبا ولا جبح اللي قبيلك خشنك يحرن بدل مجرو هذا وحندي لا دنيا مركح كلها بتو إكسامبل دنيا كلي مان حتى دتك دأدي ذو كلها هذه ميدل إيج كا هذه حاجة تجمعين دنيا أي أسميان برنامج tusaan in teegistaan dharka volunteer u shaqeeyaan sida degmada amba maartay meelaha la xiriiraan ku maartay shaqaalaha degmooyinka oo ama dawladda hoos oo kale in la shaqeeyo volunteer hadii gaariga awoodid hadii qashinkii ka gidsid geedka wadankaaga inta markaa joogto waa shaqeystaa sax xaqna in laga shaqeeyo waa qasab aniga aadan walaa taas macnaha niyadeedu waa ku riyooda xitaa anoo jidka qashinka xaqaa way wadan aan leeyahay ogaa hadana waa dareemahay dhibaatada meesha ka taagan hadda dhibaatada way bixaysaa waa in dhalinyarada inta ka tagto ama odayaasha sida anoo kala ama meel dhaxaadka inay wax ka qabtaan meesha oo dadka caawiyaan insha Allah ta'ala binaagib waan rajeyn doonaa in isbedel badan ma doono assalaamu alaykum horta ani waxay la tahay dhalinyaro badan oo qurbaha ka tagay ayaa wadankii tagay oo hadda noqday oo wax badan oo mataqaana barnaamijyo iyo projecti maaragtay mawduucyo badan iyo waxyaalo badan oo shaqooyin abuuray marka dhalinyaro badan baa laabatay oo hadda ma ahan inaan saan la socono hadda fiiriso isbitaalada magaalada Muqdisho hadda fiiriso dhismooyinka kale dad badan oo halkan qurbaha wax ku bartay oo North America, Europe, Australia, Africa qaarkeeda meel badan ka noqday ayaa wadankii tagay oo runtii shaqo fiican ka hay marka dhalinyarada qurbaha joogta maarta banaanka jooga qaar ba waxay aaminsan yihiin hadii wadankii lagu noqdo in qarax iyo dhib uu ka jiro oo mar walba leeyahay qaar baan ku dhiiran karin sometimes waxay leeyihiin marka taa reality-ga ma reality waxa waaye meesha Muqdisho qaasaan magaalada Muqdisho waa nabad qof walba oo qurbaha ka tagay waa tagi karaa waa ka shaqeyn karaa haddaba waa ka shaqeynayaan
magaaladan hadda aan joogno London dhalinyaro badan oo ka tagtay oo aan garanayo baa hadda Muqdisho ka shaqeeya oo shaqooyin fiican ka haya qaar baa igula soo xiriiray social media iyo social network qaar baa igula soo xiriiray oo waxay leeyihiin iyo magaaladii waa nabade magaaladii imow oo kaalay waxa waaye horumar ka qayb qaado waxa la isugu xiri karaa su'aasha hadaan u soo noqdo waxa la isugu xiri karaa in la yeesho xiriir dhalinyaro dibadda joogta kuwa gudaha jooga in la isku xiro in la helo dad isku xira oo maxaan ku dhigi karaa qayb walba looga qayb qaadan karo qaar ahaan maxaan ku dhahaa internetka iyo maxaan ku dhahaa akhbaarta informationka iyo social media la isku xiro maxaan ku dhigi karaa la isku xiriirka la badiyo oo dhalinyarada loo sheego qurbaha jid inay soo noqdaan oo dhan magaalada Muqdisho imaadaan oo ay ka qayb qaataan horumarka iyo hadda wanaagsan oo ka socda dawladda Soomaaliyana waxa leeyahay fursado wada abuurteen inta hadda abuurteen in ka sii badan inay runtii abuuraan baa laga doonayaa oo intaan la gaarin intaan dawladdan waqtigeeda dhammaan 2016 la gaarin la helo xataa dhalinyaro doorashada isu diyaarisa oo aqoon leh oo doorashada qayb ka noqota injineeraa jira dhaqtarraa jira wax walba jira waa la helayaa fursado wanaagsan waa laga helayaa dhulka Soomaaliya amoodina meesha in bas qarax ka socday nolol fiican baa ka socota aad baan u mahadsantahay maxaad dhalinyarada baaq u direysaan kuwa ku nool dalka Soomaaliya runtii ayadoo dhalinyarada qaarkood lagu eeday inay isqarxiyaan ee waxyaabo aan nafsadooda u fiicneen ay sameeyaan maxaa ugu baaqi lahaydeen runtii dhalinyarada wadankii waxaan ugu baaqi lahayn waxaan u direynaa talo muhiim ah oo runtii dhaxalgal aan rabnaa inaan u dirno dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhibaatada wadanka ka jirta dhalinyaro badan oo Mareykanka ka soo noqotay qurbaha ka tagay baa wadankii way qaar baa isqarxiyay qaar baa hotel isku qarxiyay runtii waa murugo hadaa daawato sometimes hooyo caruur dad cunto iska cunaya meel iska fadhiya inta dhex gashay inaad qarxiso waxaan dhihi karaa runtii arrintaas aad waaye aad bay noo dinqanaysaa markaad fiirsato waxyaalaha halkaas sometimes ka dhaco qaraxyada dhalinyarada baaqan dhalinyarada u dirayna waxa waaye yaa leen marin habaabin yaan leenka weecin wadada wanaagsan yaa leenka weecin mustaqbalkiina yaa leenka weecin aayihiina iyo sharaftiina iyo karaamadiina meesha ku gaari ka dhan ilaahay ilaad qof muslim disho kuma banayn marka iska daaya kuwa marinka qaldan in marinaya oo inii sheegay in janna ka jirto magaalada qofkii isdilay janna galay janna ma galaysaane ta ilaahay ka baqdaan cibaadaysta janna waxa galaysan salaadiina tukada masaajidka waxa wanaagsan oo ilaahay dadka faray sameeya ays qarxinina waxa sameeysan odayaal badan iyo kuwa badan oo siyaasiyiin ama kuwa urur diimeed sheegta baa dhalinyaradu waxa u isticmaalayaan hadaf ay ku gaaraan ayaga weydiiyo kuwa in soo diray ayagu ma isqarxiyaan ayagu maxay isu qarxin laayihiin wadada waaweyn wadada inaan magacaabo ma rabo laakiin way dhacdaa ayaga laftooda ma dhahaan inuu hormar hadii janna dhowdahay janna ilaahay xaqiisa loo raadiyo looma raadiyo inay qof disho runtii waxa oran karaa ku qaldamina baaq baan u dirayaa ku qaldamina meel kastoo joogtaan gobolada magaalada Muqdisho meel walba joogtaan horumarka gobolada guud ahaan Soomaaliya overall markaan dhaho guud ahaan ka socda ka qayb gala dhulkiina wax ka qayb gala hal eray waan rabaa inaan ku daro ninkaas ka hadlay saaxiibkay oo ah in wadankaaga aad u shaqayso waxa waaye wadankaaga hadda wadankan London Ingiriiska aan joogno wadooyinka waa arag subaxdii gurigaaga hortiisa laga guraya qashinka maxaa diiday intaan noqono inaan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda nadiifino soo anagu dhulka ma lihin xagee u soconaa anagu dhulkan baan leenahay dhalinyaradu waxa ka qayb qaateen in maartay si voluntary lacag la'aan 6 bilood inaad ku shaqayso wadaninimada iyo shucuurtaada ay ku tusaysaa lacag la'aan baan ku shaqayn doonaa already rag baa ku shaqeeyo fanaanada u xirtay oo badeelo iyo wataxaqin oo magaalada Muqdisho ka guray qashinka emotionally aba shucuur ahaan marka fiirsato aday kugu soo dhacaysa inaad ka qayb gasho waana ka qayb galaynaa barnaamijkana waxaan leenahay si wada dhalinyarada TV qaranka guul baa lagu gaaraya waana guuleysanaynaa insha Allah aad baa u mahadsantahay Cabdullaahi Xasan runtii hadaladiisa shucuurta ka muuqatay isla su'aasha ayaan ku jirnaa barnaamijkeena waa gabagaba ugu dambeyn Ismaaciil maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dhalinyarada waxa ugu baaqayaa dadaal badan dhalinyaro badan oo dadaashay oo wax fiican sameeyay way jiraan kuwaas dadaalkooda ha wadaan kuwa maqan ama waxyaalo xun ku maqnaadaan ama danahooda gaarka ku maqnaadaan ayakan waqtigooda waa inay wax ka siiyaan wadankii waa in dawladda dhifteeda la taageero oo dawladda waa dad waayo ma aha dawladda lagu sheegay wax oo iska imaado ma aha
waa dad shacabka waxa waay iyo dad mas'uuliyad qaado waay soo qofka mas'uuliyadaas qaaday hadduu taageerada dhinaca dhalinyarada ahaan hadduu helo wuu guuleysanayaa because waxa ugu weyn adduunyada oo heer lagu gaari karo waa dhalinyaro soo dhalinyarada waxaan u baaqi lahay kii wax xun sameynayo wax xun maanta kugu dambeeyay jooji wax wanaaga dhinac wanaag u soo jeeso wadankaaga caawi dadkaaga caawi qofkii wanaag wado dhalinyaro ahay wanaag meeshiisa ha ka sii wado dhalinyarada ha is cafiso cafis oo dhalinyarada dhexdooda oo gaar ahaan ha sameeyso dhalinyarada maadaama oo wadanka la kala cararo dhalinyarada adduunka meel ku kala koreen hataa wadamada qaar kood isku af ahayn isku dhaqan ahayn inay isbartaan iscafiyaan oo wadanka loo soo wada jeesto oo hal meel laga soo wada jeesto waxa amsan dhalinyarada ay guuleysatana wadanka uu guuleysanaya haddii dhalinyarada ay qasaartana wadanka waa qasaaraya soo aniga mid aad u jeedo booska kaliya oo wadanka ka dhiman horumarka maanta socda ka dhiman waa dhalinyarada dadka kale howlahooda way qabsadaan haweenka kale hooyooyinka waa daalamaanba TV-ga ka aragnayo ko horumar sameeynaayo aabayaasho kale way gadaalayo kan horumar way sameeyaan laakiin dhalinyarada horumar sameynayso aam dhaadiman soo kaalintaas dad wadanka uu qabsado walbo Soomaali kamid ah uu guuleysanaysa soo jiifka hal ay kaco dhalinyarada gacmaha is qabsato horumar ha gaarto ilaahayna wixii wanaagana waafajiyo waa gartay xaaji ugu dambeyn wallahi waxa ugu baaqi lahaa waa wixii dhanba macnaha muhiimadeeda dhalinyarada ka hadashay kaalinta aniga aadan aan dhila dadka aniga middle age-ga oo maartay daada gaaro wax soo bartay waa inay ayaga naftigooda inta wax ku bartaan wax sida aan kala hor u sabtaan wax cusboonistaan waa in meesha lagu noqdo maartay wax alla wixii laga qaban karo laga qabto waayo qof walba cimrigiisu wax ilaahay og intuu gaarayo qofkan bini aadamka noolna waa sida aan diinteena noogu sheegto nabiga ilaahay uu sheegay oo nabiga noogu soo dhig 60 sano qofka dhaaf maayo 60 sano gaarto ka bacdi waa class is gone arkay 70 hadaa sii gaarto waxa noqonaya nin oo baakoor iyo laga dabooday barnaamij kale marka inta xayiga leeyahay oo la nool in dadku wax loo qabtaa insha Allah taala bin al-karim waxaan idin dhihi lahaa insha Allah taala midnimo iyo horumar dal lagu dhisaa dadaal dawladnimada waa dadnimadaada dulli iyo maanta wixii dhacay in laga dardaar qabo hal laga faa'iideysto waqtiga hadda jiraan dhiila insha Allah taala bilaakin waan ma santan TV-ga qaranka aad baa u mahadsantahay erayadaasi uu xaaji noo soo jeeday ayaan ku xiri doonaa barnaamijkeena dhalinyarada aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada London barnaamijkan waxa marti iigu ahaa Cabdullaahi iyo waxa sidoo kale Ismaaciil iyo waliba xaaji oo marti iigu ahaa waxa idin soo daadinaa barnaamijka anigoo Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad dhanka kaamirada waxa inoo hayay Maxamed Deeko intaan barnaamij la-aamid aan ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteenu isku duuban sidaas iyo nabad gelyo Soomaaliya nabad